بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaasha sharafta leh ku soo dhawaada marka koowaad page-kayga cusub Balwan Show. waa page aad kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiyo haddii aadan horay page-kan follow u saarin follow garee si aynan kuu sheegin barnaamijyada aan soo gudbiyo oo mar walba aad ka daawan karayso page-kan Facebook Balwan Show. muuqaalkan markuu kusoo gaaro videoga like saar siina share garee si live ah ayaan u gudageli doonaa warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee dalka. soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan oo aan idinla wadaago anigoo cabdulaahi balwaana. qodobada aad ku daawan doonto barnaamijka xilligan waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda dalka iyo marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. saacadihii ugu dambeeyay maxaa ka socda magaalada Muqdisho. muqdisho waa caasimaddii Soomaaliya. waxaa ku sugan siyaasiyiinta mucaaradka madasha golaha mustaqbalka Soomaaliya. sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa ku sugan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo salugsan xaaladda siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. sidoo kale dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa saacadihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka socday. waxaan idinla wadaagi doonaa meel kastoo aad joogtaan marxaladdii xalay siyaasaddii xamar muuqaalka sheergareeya. muuqaalka sheergareeya la wadaaga asxaabtiina kuna soo dhawaada page-kayga cusub Balwan Show. halkan ayaad kala socon doontaan macluumaadyada ugu dambeeya xaaladaha ka jira Soomaaliya. soo dhawaada dhammaantiin. aan ku bilaabo xalay Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo waaweyn oo siyaasiyiinta mucaaradka oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha siyaasadda iyo sida loo wajihi lahaa xaalka madaxtooyada billa Soomaaliya. sidoo kale isla Muqdisho xalay kulamo waaweyn oo runtii siyaasadeed ayaa ka soconayay. dhoolatuska siyaasiyiinta mucaaradka meesha kama miirnayn oo mucaaradku xalay waxa ay u soo bandhigeen bulshada Soomaaliyeed aragtidooda saxda ah ee ku salaysan marxaladda dalka uu marayo. dhoolatus cajiiba oo ay mucaaradku soo bandhigeenna muhiim ayay inoo tahay. barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa khudbadihii xalay siyaasiyiinta mucaaradka Muqdisho ay ka jeediyeenna waan iftiimi doonaa. hadalkii madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaan isla eegi doonaa. wuxuu ka hadlay arrinta siyaasadda dalka, gaar ahaan wuxuu ka hadlay aamusnaanta xildhibaanada matala beesha Hawiye. wuxuuna isdhinac dhigay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani xildhibaanada Hawiye 2021 xildhibaanada Hawiye 2026. waxa uu dul dhigay su'aal ah maxay tahay xildhibaanadan isbedelay oo aamusan 2026 laakiin cabanayay 2021. su-aashaas falcelino ayaa ka dhashay. ma saxba ma ku qaldan yahay ma ku saxan yahay intaba waan isla eegi doonaa. muuqaalku waa kooban yahay, waa live. soo dhawaada sii sheergareeya. madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa xalay qayb ka noqday dhoolatus siyaasiyiinta mucaaradka ay Muqdisho ku soo bandhigeen. muxuu ku saabsanaa kulankii xalay cashada ahaa oo ay khudbado ka jeediyeen siyaasiyiinta mucaaradka golaha mustaqbalka Soomaaliya. aragtida badqabka dowladnimo ee Soomaaliya iyo weliba fikirka siyaasiyiinta mucaaradku aad ayuu xiiso u lahaa. kulankii maanta la sugayay ee dhex mari lahaa madaxweyne xasan sheekh iyo siyaasiyiinta mucaaradkana warbixin baan idinkaga sidaa. soo dhawaada sii sheergareeya muuqaalka. xalay magaalada Muqdisho dhoolatus ayay ku soo bandhigeen siyaasiyiinta mucaaradka golaha mustaqbalka Soomaaliya. waxay meesha ka saartay xalay arrimihii la waday muddo dheer oo ay madaxtooyadu iibinaysay. arrintaas waxay ahayd ama lid ku ahayd madaxda Puntland iyo Jubbaland oo ay dowladdu muddo dheer dacaayada ka fidinaysay. Saciid Dani Muqdisho necab yahay. Saciid Dani dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeedaa. Saciid Dani ma ogola nabadda caasimadda. Saciid Dani dowladnimada ka jirto hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh uu diidan yahay. dadka caasimadda muddo dheer ayaa looga sheekeynayay ama loo xumaynayay siyaasadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. laakiin waxaa filowaa noqday dadkii beenta intaa la eg ama isku horkeenista intaa la eg laga shaqaynayay in ay si sharaf leh u soo dhaweeyeen. in xildhibaanadii Hawiye ay saf dheer u galeen. in xildhibaanadii Hawiye ay kaga soo qayb galeen xalay kulankiisii Muqdisho. in la sharfay haybad leh Saciid Cabdulaahi Dani madaxa la saartay. waxaa meesha ka baxay marka sheekadii xasan sheekh iyo tiimkiisu wadeen oo salka ku hayay Saciid Dani Muqdisho necab yahay. xalay markii dhoolatuska uu bilowday khudbadii halkaa laga jeediyey waxaa caddaatay awoodda siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqa caasimadda ay ku leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka.
isla xalay waxaa caddaatay mugga iyo miisaanka madaxda jubbaland iyo puntland iyo arrimaha siyaasadda dhaqdhaqaaqa soomaaliya isla xalay waxa ay ka qudbeeyeen madaxda jubbaland iyo puntland halkii ay ka qudbeeyeen sanadku markuu ahaa 2021 waa isla goobtii waa isla goortii waa isla marxaladii waxaan rabaa markayn si kooban aan uga hadlo dhoolatuskii xalay siyaasiyiinta mucaaradka oo kooban si ay bulshada soomaaliyeed ee iga daawanaya pagekayga facebook balwan show ay u ogaadaan subaxnimada saaka marxaladii xalay siyaasadii iyo dhawaaqii siyaasiyiinta mucaaradka miisaaniyadda siyaasadeed oo ay mucaaradku ku leeyihiin arrimaha soomaaliya horta soo dhawaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud nacayb loo qabo ma jiro waxaa laga soo horjeedo waa siyaasad xumadiisa qabiil laguma diidano madaxweyne xasan sheekh waa nin hawiya ragga siyaasiyiinta ah ee xalay goobta ka qudbeeyana hawiyay u badnaayeen cid necab reerka hawiye ma jirto waa dad karaamaysan qof ka soo horjeeda hawiye ma laha muqdisho waa caasimadii ummadda waxa la isku haysta waa siyaasad xumada madaxweyne xasan sheekh dadku inay taa fahmaana muhiima waxaa fikirka xasan sheekh diidan dadkii dad ugu xigay inaad taas fahamtaan waan jeclaan lahaa intaa kadib khudbadihii xalay waxay muujinayeen dowladnimo jacayl siyaasiyiinta golaha mustaqbalka rajada ay ka qabaan badbaadada dowladnimo ee soomaaliya in aysan ka aqbalayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud in muqdisho dhibaatada ka socoto lagu eegto waxay xalay siyaasiyiinta golaha mustaqbalka soomaaliya caddeeyeen soomaaliya in aysan ahayn soomaaliya xasan sheekh u dhisan oo ay tahay soomaaliya ummadda soomaaliyeed ay wada fiirsanayaan in muqdisho aan looga samri karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan laga aqbalayn sidan doono ayaan ka yeelayaa caasimadda iyo siyaasadda waxaa loo muujiyey xalay dalka in la wada leeyahay madaxweyne saciid cabdullaahi dani baa hadlay wuxuuna sheegay inuu la yahay siyaasiyiintii xildhibaanada ahaa ee ka soo jeeday reerka hawiye isla markaana uu baafinayo meeshii lagu ogaa 2021 xildhibaanada hawiye in aysan taagnayn 2026 hadalkaas dadka siyaabo kala duwan ay uga hadleen maxaa ka jira warkaas saciid dani 2021 wuxuu arkay senator muuse suudi yalaxow oo cabanaya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo cabanaya xildhibaano fara badan oo hawiye ah oo ka cabanaya madaxweyne farmaajo laakiin wuxuu waayey 2026 xildhibaanadii waaweynaa ee cabanaya 2021 fasilkaas ma taqaanaan ha fiirinina hadalka saciid cabdullaahi dani ee eega micnaha fasilka uu leeyahay dani wuxuu ku yiri cabashadii aad shalay qabteen maanta ma qabtaan dani wuxuu ku yiri shalay xildhibaanada hawiye meeshay taagnaayeen maanta ma taagna micnaheedu shalay xildhibaanada hawiye ma waxay diidanayeen bal arag fasilka ma waxay diidanayeen madaxweyne daarooda oo ma waxay maanta u aamusan yihiin madaxweynihii baa hawiye ah fahma hadalka saciid cabdullaahi dani fariintaas waxay sidoo kale caddayn u tahay qofka maanta dulmiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga aamusaya arrimo qabiil inay tahay qalad fariintiisu salka waxay ku haysay war hawiyow inta maqan shalay farmaajo ma waxaad uga soo horjeedeen qabiil mase waxaad diidaneedeen dowladnimo qaldan haddaad shalay farmaajo dowladnimo qaldan ku haysateen maanta xasan sheekh maxamuud intii shalay farmaajo uu samaynayay in ka badan uu samaynayaa idin aaway waa su'aal gar ah oo madaxweyne dani weydiiyey xildhibaanada maqan ee reer ahaan ka soo jeeda hawiye haddii shalay qayladhaanta xildhibaanada hawiye ay ahayd farmaajo mareexaana farmaajo daarooda maantana ay aamusaan micnaheedu farmaajo mareexaanu ahama daarood sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waa hawiye waxay ka tarjumaysaa in shalay looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo qabiil marka hadal aad u dhaawacay siyaasadda maqan ee reerka hawiye waxaa jooga hawiye dad badanoo hawiyana way fadhiyeen goobta laakiin inta maqanay turjumid u tahay haddaad maanta uga aamusto xasan sheekh maxamuud dulmigiisa waa hawiye berrito madaxweynaha bedeli doona markaad hadasho waxaa lagu leeyahay qabiil baad wadaa ee qaran ma wadid haddaad maanta dulmiga xasan sheekh maxamuud qabiil ku difaacdo berri waxaa imaanaya maalintaa ka duwan madaxweyne axmed maxamed islaam oo si weyn madaxtooyada uga adkaaday oo runtii haddii qof iskoor u sameeyey madaxweyne axmed maxamed islaam ayaan u hayaa iskoor aad u weyn bulshada soomaaliyeedna ay markhaati ka tahay dowlad baa hal sana la dagaalamaysay hubkii qarankaa hal sana loo adeegsaday
bulshadii jubbaland ayaa la cinqaabay aflagaado iyo gef ayaa loo geysanayay ummadda reer jubbaland ayaa la ijaafeeyey sumcaddiisii iyo dadnimadiisii lagu tilmaamay argagixiso maantana muqdisho joogaa waana madaxweynihii jubbaland haddii qof uu libin iyo guul leeyahay axmed maxamed islaama libin iyo guul haysta halkana waxaan fariin uga dirayaa dadkii aynu challenge-ga galnay waagii la lahaa new jubbaland baa laga dhisayaa gobolka gadow fariintan iga gaarsiiya dagaalkii new jubbaland intuu socday oo gada laga abaabulayay barnaamijka dhan ah madaxweynaha jubbaland halkan waxaan wacad uga maray in aan difaaci doono isla markaana guushu ay noqon doonto madaxweynaha xaqa ah axmed maxamed islaam waxaan rabaa inaad iga gaarsiisaan kuwii new jubbaland waday libintii maanta waan qaaday madaxweynihiioo qasab ku tegay caasimadda barya la'aan oo aan lagala tashan xasan sheekh iyo xamza ayuu muqdisho joogaa waana madaxweynaha rasmiga ah ee jubbaland cid marka annaga nala tartami karta axmed madoobe ama sayidka iyo maamulka jubbaland ma jirayso mana jiri doonto intaa kadib khudbaddii uu xalay jeediyey madaxweyne axmed madoobe wuxuu dowladnimada tusay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u sheegay waxay u yimideen inay tahay wixii uu shalay u taagnaa 2021 xasan sheekhow isdeji waxaan u imaanay waa wixii aad shalay adiga u timid 2021 baa lagu yiri khibrad siyaasadeed oo lagu kala adkaado hadday jirto axmed maxamed islaam wuxuu uga adkaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa hadday jirto siyaasad lagu kala adkaaday hadday jirto waay khudbadiisii kadib rag kale oo siyaasiyiina ayaa halkaasi ka hadlay oo dhammaantoodba caddeeya dalku inuu qatar ku jiro caddeeyey dowladnimadii inay qatar ku jirto ummadda soomaaliyeed u iftiimiyey xaaladda siyaasadeed oo dhan xalay marka dhoolatus cajiiba ayay siyaasiyiintii mucaaradka soo bandhigeen intaa kadib shirkii maanta horta madaxweyne xasan sheekh xalay 2 jeer ayuu erge soo dirsaday 2 jeer wuxuu siyaasiyiinta golaha mustaqbalka soomaaliyeed u soo gudbiyey 2 fariimood wuxuu codsaday madaxweynaha walaalayaalow 2 fariimood iga aqbala ina ixtiraama wuxuu yiri aniga shalay nafsi ayaan ka galay madaxweyne farmaajo isagoo dhibban ayaan ku digtay xasan sheekh dhahaya meesha aan maanta joogo ayaana ilaahay ii alfayo i keenay ha igu dayanina isharfa farmaajo shalay waxaan ku caayay madaxweyne farmaajo madaxtooyada loogu imaan waayey wuxuu xalana kula kulmayaa siyaasiyiintii ka aragtida duuna ayaan shalay dhihi jiro yiri madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo mandate haysta ayaan ku weerari jiray madaxweyne farmaajo madaxtooyada loogu tagi waayey xalana loogu tagayaa marka walaalayaal ha igu dayanin uu yiri maxaad u baahan tahay wuxuu yiri shirka furitaankiisa madaxtooyada igu imaada aan shirka madaxtooyada ku furno haddaad iga aqbalaysaana aan ku dhammaystiro maxaa loola jeedaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa shirka in madaxtooyada lagu qabto bilowgiisa haddaan laga yeelayn in lagu soo gabagabeeyo wuxuu codsaday maadaama mandatekiisa ay ka dhiman tahay 9 maalmood oo 92 maalmood ay ka dhiman tahay waa madaxweynaha dhabta ah ee madaxweyne xasan sheekh inuu xaq u leeyahay in lagu ixtiraamo in madaxtooyada loogu tago kulankana uu madaxtooyada ka dhaco haddaan lagu dhammaystiri karin xitaa in madaxtooyada kulanka lagu furo adduunka la tuso in weli Soomaaliya ay dawladda ka dhisan tahay oo weliba madaxtooyadu ay tahay xaruntii dawladda federaalka Soomaaliya hal igu qiimeeyo yiri nacala sheedan ku yaal hal igu sharfo jawaabtu way kooban tahay waxa lagu yiri madaxweynuhu adigu shalay sharafta aad maanta rabto ma samaysay ma sharaftay maamulada Jubbaland iyo Puntland ma ixtiraamtay maya maxaad isku dayday burburinta maamulada Jubbaland iyo Puntland ma abaala ku yaal waxaad ogeyd bar Jubbaland iyo Puntland ku samaysay ma abaal ba ku yaal madaxda siyaasiyiinta mucaaradka samata bixinta meeqa jeer ayaad dhulka ku jiiday ma abaal ba ku yaal dhinaca siyaasiyiinta samata bixinta maxaa waji ah oo lagu ixtiraamaa إلا مدحوينه كرامة إيه احترامك أوليه وحوي ومد ومتهستي وشقيستي أيا لو كرامة يا
laakiin hadduu madaxweynuhu noqday madaxweyne ciyaala suuqaynaya oo dhaqankii xasan sheekh maxamuud uu noqday dhaqan aan u qalmin dowladnimada oo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ay ka mid ahaayeen kowdii bishan wixii lagu sameeyey wafuuddii puntland iyo jubbaland ka socotay oo ay qayb ka ahayd socdaalkii ay muqdisho ku yimideen oo mukayfka ama qaboojiyaha laga jaray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho maxay tahay abaalka maxay tahay ixtiraamka golaha mustaqbalka ay ku hayaan wallahi odagu xaalka horta waa ka xun yahay madaxweyne xasan sheekh waa cabanayaa wuxuu codsanayaa shirka in lagu qabto caasimadda soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada inay ceeb tahay in la hoos tago shisheeye inuu diyaar u yahay wax walba inuu ka tanaasulo laakiin uu codsanayo in shirka madaxtooyada lagu qabto xasan sheekh wax walba miiskay ka saaran yihiin wax walba waa ka tanaasulaa buu leeyahay wax walba sida aad rabtaan ayaan ka dhigayaa igu sharfa nafsigii aan farmaajo ka galay hayga gelinin shalay farmaajo sidaan ugu digtay maanta aniga haygugu diganina aniguu ahaa ninkii diidanaa xalana in lagu kulmo maantana aniga ayuu ilaahay iga abaalmariyey oo maanta xalana inaan tagoon ku qasbanahay waa laga diiday madaxweyne uma qalantid in madaxtooyada lagugu yimaado madaxweyne ma aadan mutaysan in madaxtooyada lagugu yimaado hadalkaas waa hadal ay si qeexan golaha mustaqbalka soomaaliya ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu gudbiyeen waayahay maanta kulankii lagu ballansanaa waa khamiis 12 bisha 2 2026 waxaa lagu ballansanaa shirkii u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka golaha mustaqbalka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirka maanta ma dhacaya maya maanta wax shir oo jiro haba yaraatee ma jiro maantana shirka ma qabsoomi karo sabab hadduu maanta dhici waaye sababtee ayuu u baaqday goormuu dhacayaa shirka u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud su-aasha koowaad maxaa ku dhacay maanta shirka kow weli waxaa maqan xubno ka tirsan golaha mustaqbalka soomaaliya waxaa ka mid ah madaxweyne shariif sheekh axmed rag kale oo siyaasiyiina ayaa maqan waa la sugayaa maanta waxaa jira shir ay golaha mustaqbalka soomaaliya keligood ay qaadan doonaan waxay uga hadli doonaan arrimaha taagan iyo shirka sida laga yeelayo qodobada ugu badan oo ay ka doodi doonaanna waxaa qayb ka noqonaya in madaxweynaha mowqifkiisa la ogaado ka hor inta aan sawir lala gelin inta aanan madaxweynaha sawir lala gelin oon madaxweynaha dhinac fariisan in la ogaado ujeedada ama go'aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirka ku saabsan maantay ka hadli doonaan berito waa jimco wadamada islaamka berito waxay u tahay nasiino sida dalalka kale sabtiga iyo xadda ay u nastaan wadamada muslimiinta ama dadka muslimiinta ay degan yihiin maalinta jimcaha waa la nastaa oo dalkeena hooyo uu ka mid yahay jimcaha berito waa la iska nasan doonaa waxay u badan tahay shirka inuu isbuuca kala gaaro maalinta jimcaha sabtiga axadda kulay ama sabtiga ama axadda waa un isbuuca islaamka waa sabti dhinaca kalena waa isniintu bilowdaa marka maalinta sabtiga iyo axadda inuu shirku gaaro ayay u badan tahay haddaynan maanta wax isbedelin shirku wuxuu gaari doonaa sabti axad isniin maxaa la isku haystaa maxay madaxtooyadu doonaysaa maxay madaxtooyadu doonaysaa oo salka hoose ee siyaasadda ah soomaaliya marxaladeedana maxaa la gudboon madaxweyne xasan sheekh weli arrinta dar alla kama aha wuxuu rabaa in laga aqbalo oo isku furto ra'iisul wasaaraha mucaaradkuna ma danaynayaan ra'iisul wasaare ay qaataan xasan sheekhna wuxuu rabaa inuu xamse meesha ka saaro mucaaradku ay ra'iisul wasaare la yimaadaan halkaasna uu muddo kordhin ka dhex raadiyo fahma xasan sheekh waxma diidano laakiin muddo kororsiu rabaa xasan sheekh doorashada in aynan ahayn doorashadii uu rabay waa ogaaday mana u soconayso laakiin muddo kororsiu rabaa in aan dastuur wax ka beddelkiisa uunan keligii ku filnayn waa og yahay laakiin wuxuu rabaa muddo kororsi odaga nuxurkiisoo dhan waa muddo kororsi muddo kororsiuu raadinayaa ma laga aqbali karaa war ma siinaa war ma ka ogolaanaa ma mudan yahay madaxweyne xasan sheekh horta kow madaxweyne xasan sheekh haddii muddo kororsi la siiyo oo uu muddo kororsi helo qofka kow uu ka bilaabayo waa siyaasiyiinta mucaaradka abaal male maanta haddii dan iyo axmed madoobe ay aqbalaan
laba sano oo laba sano ama hal sano muddo kororsi la siiyo dagaalka ugu horeeya Dani Axmed Madow ka bilaabaya odayga horta dhibaatada soo qaba oday abaal leh ma aha 70 jirka Xasan Sheekh wallahi abaal male maanta haddaad isxaan u samayso barrito adigu karfantaada tolaya horta wax fahma nasiibka iyo calafka waa halkiisa laakiin Xasan Sheekh ninka abaal u gala waa ninka ugu horeeyo oo gowraca waay mucaaradku marka taas is weydiinayaan labo faa'iidada qaranka ma ku jirto inuu Xasan Sheekh sii joogo dadka inay fahmaan rabaa anagu qabiil shaqo ku maleeyo anigu qabyaalad shaqo ku maleeyo anigu qabiil iyo qabyaalad midna ku difaaci maayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed runtan uu sheegay Xasan Sheekh qaranka Soomaaliyeed qatar ayuu ku yahay Xasan Sheekh dowladnimada Soomaaliyeed oo qatar ku yahay haddaanan hadda laga qabanna Soomaaliya meel fog baa laga raadi doonaa maxaan saas ku leeyahay intii xalay ay siyaasiyiintu mucaaradku qudbaynayeen Xasan Sheekh wuxuu lacag ku bixinayay siyaasiyiin isaga ku qabiila oo xildhibaano ah inay meediyaha ka caytamaan inay meediyaha siyaasiyiinta mustaqbalka Soomaaliya ay u gafaan waxaa ka mid ah xildhibaan Xadoole iyo xildhibaano kale oo golaha shacabka ka tirsan oo qaab qabiilaysan lagu laalushay oday waajib saaran yahay oo dalkan laba jeer madaxweyne ka noqday uma qalmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida dhabta ah marka laga hadlo muxuu shalay sameeyay muxuu maanta sameeyay waa iska dhaqan toos ah dhowr maalmood ka hor Baydhabo waxa laga qabanqaabiyay dagaal yaa diyaariyay madaxweyne Xasan Sheekh wasiir ka tirsan xukuumaddiisu u xil saaray ama dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa loo xil saaray dagaalkii Baydhabo Xasan Sheekh u diray war shalay dabkii Baydhabo ka dhacay Xasan Sheekh qabanqaabinay odayga muddo kordhin hadduu helo Soomaaliya qatarta ugu xumayd bay galaysaa lagama aqbali karo laakiin isagu wuxuu rabaa inuu isku furto ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre wuxuu aqbalay ama uu dalbanaya in la kansado ra'iisul wasaare muddo kordhin uu raadinayaa wuxuu rabaa markii inuu shuruud nooga dhigo haddaad rabtaan in aan aqbalo doorashada muddo kororsi qaata haddaad rabtaan in aan ka laabto dastuurka muddo kororsi qaata cid ka yeelaysa male taas cid taas ka aqbalaysa malaha maxaa yeelay abaal cid u galay oo maanta looga aqbali karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed ma jirto inaad xogaataan aan jecelahay marka shalay raggii gacan qabtay waa ragga maanta mucaaradka ah waay war madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed 2022 ma jacayl iyo kalsooni loo qabo miyaa loo doortay maya cid rabtay ma lahayn konton cod uu haystay 2022 konton cod ma konton cod madaxweyne lagu noqdaa ii sheeg laguma noqdo yaa gacan qabtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani codadkii ugu badnaa oo Xasan Sheekh madaxweyne ku noqday Dani yaa iska lahaa codadkii ugu badnaa oo ku noqday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani baa keenay ma waxaad u malaysaan madaxweyne Xasan Sheekh kalsooni lagu qabo iyo weliba inuu yahay oday u qalma qaranka Soomaaliyeed in lagu doortay farmaajo laga cararayay godkan Xasan Sheekh waxa lagu dhacay inuu farmaajo laga cararayay maanta marka 2026 mar saddexaad ma la dooran karaa carar Soomaaliyeed Xasan Sheekh ama teendada ha tago ama shacab Soomaaliyeed ha hortago haddii doorasho xor la yiraahdo haddii la doorto mar dambe arrimo siyaasadeed kama hadli doono cid shacaba oo rabtana male kalsooni golo baarlamaan oo lagu dooran doono mar saddexaadna ma jirto shalayna waxaa doortay rag ka cararayay maxamed cabdullaahi farmaajo qabiil laguma dooran saaxiibtinima lagu doortay abaal iyo weliba in loo haystay odagu hadduu yahay 70 jir marna uu madaxweyne soo noqday ayuu wax qaban doonaa laakiin waxaa la helay ninkii barbaarshay baahal nool ama baxsay ama boqnago waa sidii xaaladda maanta marka siyaasadda dalka maxaa la filan karaa si kooban maadaama barnaamijku live yahay horta marka koowaad waxaan idinku soo dhaweynayaa pagekayga cusub balwaan show waa page Facebook oo aad barnaamijyadeeda ka daawan karto waa page cusub waana idinkaga mahadcelinayaa sidaad kor ugu qaadeen hala follow gareeyo pagekan waa pageka aad mar walba barnaamijyadeeda live-afka barnaamijyada kale oon anigu bulshada la wadaago meel kale oo aad iga daawan karaysa ma jirto aan ahayn balwaan show marka pageka Facebook ku soo biir intaa kadib Soomaaliyeed xaqiiqda iyo xaqa siyaasadeed ee dalka ha laga run sheego
waxba soo kordhin mayso bal arag tusaale yaraan ku siinaya madaxweyne xasan sheekh wuxuu dhisay maamul la yidhahdo waqooyi bari isagaa tegay caleemasaarka isaga ayaa ka qudbeeyey oo yiri waa maamul ku soo kordhay federaalka soomaaliya waraysigii aljaziira uu siiyeyna wuxuu yiri somaliland waa hal mana jirto maamulka dhex dhisa somaliland ilaahay idinku dhaariyey ma qaba waa ninkii 17 bishii tagtay ee January laascaanood ka lahaa waqooyi bari waxay ka mid tahay maamulada dalka ka jira aljaziira wuxuu ka sheegay somaliland inay tahay mid oo ayna jirin maamul ay ka dhex dhiseen dowladdiisa war waa munaafiq runtan idin sheegaya war wallahi aflagaadiga maaha ee xaqiiqda iyo xaqa kama gambado xasan sheekh waa munaafiq anaa ku sheegaya aniga runta kama gambado cid aan kaga baqana malaha inuu xasan munaafiq yahay wixii ka dhacay laascaanood sidii la ogaa ee loo sharfo loo soo dhaweeyay sidii la ogaa ee waqooyi bari ay u jeclayd wuxuu ku abaalmariyay somaliland waa hal maamul aan dhisna ma jirto runta waa taas marka maanta maxaa la filanayaa shirka horta maanta ma dhici doono waa shirkii golaha mustaqbalka iyo madaxweyne xasan sheekh sababta u dhacayna waa soo koobay horena waan u sheegay kulamo waxaa jira mucaaradku ay qaadan doonaan sidoo kale waxaa jira aragti guud oo la ururi doono kadibna waxaa loo gudageli doonaa in shirka loo diyaar garoobo berri waa jimco waa nasiino sabtiga inuu gaari doono ay u badan tahay haddaynan maanta waxa isbedelin maxaa isbedeli kara shirkan horta beesha caalamka wadata waxaa laga yaabaa in cadaadiska la kordhiyo oo la boobsiyo laga diido wax fasax la yidhahdo ma jiro hadday beesha caalamku tiraahdo waa la shiraya hadday xitaa isla maanta ilaa waa subax barnaamijkan markaad daawanayso xilliga saacadda geeska afrika hadday dhacdo inay beesha caalamku tiraahdo maanta waa in la qabtaana isbedela imaan kara marka wax walba waa la filan karaa laakiin uma badna inay maanta shiri doonaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uma badna maxaa laga filan karaa hadduu shirkaasi xitaa dhaco sabtiga hadda isniinta waa soo koobaya madaxweyne xasan sheekh wax kale ma rabiyo isbaara u taalo isbaarada xasan sheekh u taalo waxaa la yidhahdaa dastuur iyo doorasho hal dhinaca wuxuu leeyahay haddaad rabtaan inaan qodobkan iyo qodobkan ka tanaasulo muddo kordhin isiiye labadaas isbaaro ayuu muddo kordhin ku raadinayaa wax kale oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka maqan ma jirto muddo kororsiyu rabaa muddo kororsiga ma u qalmaa oo mucaaradku ma u samayn karaan aaday u kooban tahay maya sabab madaxweyne la aamini karo qaran soomaaliyeed lagu aamini karo siyaasad soomaaliyeed lagu aamini karo ma ah lagamana yeeli karo aaday u dhib badan tahay haddii laakiin ay hadday dhacdo in fursad hala siiya la yidhaahdo waxaa meeshaas ka caddaanaya in madaxweynaha qarankan meel fog laga raadi doono aadna ay u dhib badnaan doonto in xal degdega loo baxo anigu rajo badan shirkan kama qabo aad uma badna rajada aan ka qabo heshiis yimaadana ma badna rajo badan kama qabo maxaa yeelay mucaaradkuna inay u tanaasulaan xasan sheekh diyaar uma aha xasan sheekh maxamuudna in uu sharciga u hoggaansanaado diyaar uma aha aaday u adag tahay marka in natiijo badan ay ka timaado laakiin shirkan beesha caalamka wadata waxaa laga yaabaa in gacan bira lagu qabto iyagoo dhan ama loo hanjabo siyaasiyiintana haddii loo hanjabo waa naxariis badan yihiin gaaladay ka baqaan runtaan idiin sheegaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta beesha caalamka adag waxaa laga yaabaa in loo hanjabo socdaalkooda akoonnada ay isticmaalaan loogu hanjabo la yidhahdo haye cunaqabateenan ku saaraya haddii kale aqbal in la qasbana waa dhici kartaa oo ama mucaaradka la qasbo ama madaxweyne xasan sheekh maxamuud la qasbo marka go'aanka beesha caalamka iskale oo iyaga ayaa shirkan haya iyagaa casumaadda dhigay iyagaa sharafta iyo wanaagga soomaali ay la rabaan isugu keenay mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh xalane ciidamada midowga africa atmis ayaa waardiyeynaya madaxda puntland iyo jubbaland waay maxaa dhacay yaa laga waardiyeynaya xasan sheekh maxamuud aa laga waardiyeynaya ciidanka atmis waxay ku biireen ilaalada axmed madoobe iyo dani mataqaanaa sababta ma al-shabaab aa laga ilaalinaya maya waxay ogaadeen mishino ama qorshe ay madaxtooyadu doonayso in lagu dhibaateeyo madaxda jubbaland iyo puntland marka oday noocaas ah ayaa dalka hogaaminaya oday wax walba laga filan karaa dalkii hogaaminaya wax kasta laga filan karaa dadka qaar waxay isoo qorayaan nabadda caasimadda laba arrimood aan idiin sheegaya muqdisho waa nabad waa sax
laakiin madaxweyne xasan sheekh nabaddaas muxuu kusoo kordhiyey maxayse tahay sababtay nabadda u tahay magaalada muqdisho waddooyinka caasimadda laga soo galo ee ku teedsan caasimadda hadday tahay shabeellada dhexe iyo hadday tahay shabeellada hooseba waxaa horey u diyaariyey dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddaysan dowladda farmaajo suuhdimaha caasimadda aynan markii hore albaabo wanaagsan aynan u yeeli lahayn muqdisho nabad ma sii ahaan lahayn labo muqdisho kaamirooyinka ku xiran dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa iska lahayd haddaan kaamirooyinkaasi aynan jiri lahayn muqdisho nabad ma noqon lahayn maxaad libinta u diidantihiin maxaad libinta dowladda farmaajo u diidantihiin ii sheeg ma kaamirooyinka caasimadda ku xiran miyaynan ahayn kaamirooyinkii uu xiray fahd yaasiin taliyihii nabadsugiddii soddoonka qaranka war miyaynan sohdimaha laga galo caasimadda aynan ahayn sohdimihii ay dowladdii farmaajo diyaarisay maxaad libinta u qarinaysaan maxaad libinta u qarinaysaan muqdisho waa muqdisho hadduu xasan sheekh nabad ka dhigo iyo hadduu madaxweyne farmaajo nabad ka dhigo muqdisho waa caasimaddii ummadda cid kale ka xigtana ma laha inaad fahamtaan aan rabaa aniga wax fahma ujeedka qaranka soomaaliyeedna looga samri maayo xasan sheekh maxamuud caasimaddana keligiis ma laha muqdisho dadkao dhanay ka dhexaysaa mana laga yeelayo wax lid ku ah caasimadda in madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga aqbalo danaha muqdisho inuu yahay shaksi keligiis iskale maya muqdisho waxaa iskale adiga muqdisho waxaa iskale aniga muqdisho waxaa iskale annaga cid ka aqbalaysana ma laha waxba isbaaro u noqon mayso tusaale yar bal arag madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaasaddiisu siduu akranta arag ma aragteen cabdullaahi sambalolshe oo difaaci jiray hawiyanimada ma xasuustaan sambalolshe taliyihii nabadsugiddda sambalolshe muxuu samayn jiray waagii farmaajo hawiyo waxaan leeyahay aniga waxaan jeclaa lahaa madaxtooyada qof hawiyaa inuu fadhiyo yaa dhihi jiray cabdullaahi sambalolshe taliyihii nabadsugiddii soddoonka qaranka saciid cabdullaahi dar inuu soo dhoweeyo saf ugu jiray ninkii dhihi jiray intay soomaaliya nabad ka noqonayso waxaan jecelahay inuu nin hawiye ah madaxweyne ka ahaado yaa dhihi jiray sambalolshe yaa dhihi jiray sambalolshe yuu soo dhoweynayay madaxweyne saciid cabdullaahi dar xildhibaanadii garabka madaxweyne xasan sheekh maxamuud yay soo dhoweynayeen madaxweyne saciid cabdullaahi dar marka horta ogaada qofka madaxweyne xasan sheekh la shaqeeya qofka madaxweyne xasan sheekh la shaqeeya oo ku tiim ah waxaad arkaysaa isagoo ka shalaynaya oo siyaasiyiin kale isku dhiibaya maxaa kalifa ninkii lahaa nin hawiyaa inuu madaxweyne ahaadaan jecelahay sambalolshow ahaa 100 muuqaalaad keenaysaan youtubeka uu leeyahay intay soomaaliya nabad ka noqonayso waxaan jecelahay nin hawiyaa inuu madaxweyne ahaado garoonka diyaaradahu saf ugu jiray inuu dani soo dhoweeyo why sabab maxaa dhacay halgamayaashii badbaado qaran waxay xalay joogeen waa badbaado qaran waxaa la yidhahdaa ciidankii farmaajo loo adeegsaday 2021 xalay waxay joogeen xafladdii mucaaradka maxaa dhacay maxaa geeyey xasan sheekh abaal male war xasan sheekh abaal male haddaad kubtiisa tosho karfadaadu tolaya saraakiishii u dagaalamay ee farmaajo la dagaalamay waa ka shalaayeen waa kuwa mucaaradka la joogaan xalay la casheynayeen saaka waa la joogaan maxaa kalifa abaal ma jiro waxaa laga falceliyey hadalkii saciid dani yaa soo qoray qoraal 2 xildhibaan maxay yidhaahdeen saciid dani wuxuu yidhi maxaa ku dhacay siyaasiyiintii xildhibaanada ahaa ee hawiye ee cabanayay 2021 maxaa ku dhacay muxuu ula jeedaa saciid dani cabashadiina shalay madaarood nacay bay idinka ahayd mase qaran soomaaliyeed aad toosinayseen yaa u jawaabay 2 xildhibaan 3 xildhibaan aaway xildhibaanadii hawiye runtay og yihiin waa laga aamusay wax fahma madaxweyne dani ma aflagaadooday maya runtuu sheegay shalay waa cabanayseen haa waxaad diidaneedeen madaxweyne farmaajo haa waay aad maanta u aamusteen farmaajo daaradu ahaa miya qabiilaad ku diidaneedeen maantana xasan sheekh qabiilaad ku taageeraysaan ceeb iyo lama arag waa su-aasha ugu weynayd ee xalay aan dhowrayey ka hor inta aanan saaka ka soo hadlin beejkayga balwaan show waxaan dhowrayey oon islahaa bal ka soo jawaab markaad aragto falcelinta haddaad shalay farmaajo arrimo siyaasadeed ku haysatay haddaad shalay farmaajo arrimo dowladeed ku haysatay waay aad maanta uga hadli la'dahay dulmiga taagan waa su-aasha ugu muhiimsan ee la weydiiyo qof siyaasi ah
مهم وعن ربا إن ترنتو قاتان أحمد مدوب والشباب وأرقق حسو وحاكي دبي الرماح الصومالية أحمد مدوب لقلا تشريع ورما عيب إدين دبنا جست مدحوين أحمد مدوب ولا سو حريا وحاكو حكتي الرماح السياسة دلك أيا لقلا تشريع ما حد عيب سعيد عبد الله الدني مقدشو ونعب يهي ددك عاصمة الدقن ونعب يهي حاكو حكي الصفقر لوغلو مدحوين سو دوو أبقالنا أي أشربان maxaa keenay in abgaal uu u shirbo waay maxaa dhacay haway wixii la sheegi jiray saciidani muqdisho nacab yahay hawiyow nacab yahay waa maxay shirka aad ku soo dhaweyseen dadka been looma sheegi karo dadka danaha xasan sheekh maxamuud lagama dhaadhici karo hawiyo waa dad aqli badan waay dad doqomo ah oo la adeegsan kara ma ah hawiyo waa dad wax fahmaya qof walba oo soo dhaweynta saciid cabdullaahi dani muqdisho ka qayb galay qof wax fahmayo waay waa qof dareemi kara in hore loo dhaqaanay laakiin yaa ka dhagaysanaya axmed macaan fiqiya xasan sheekh iyo yaa war ka dhagaysanaya cidna horma hadday ceebi jirto runtan idin sheegaa aniga maxaan qabiil ugu difaaci waaye madaxweyne xasan sheekh waa life barnaamij waa sheekaysanaynaa raalli ahaada anigu maxaan qabiil ugu difaaci waaye madaxweyne xasan sheekh sultaan ahaan jiray nin qabyaaladista ah waa sax 5 sano qabyaaladista ah weligay wax ma qarin 5 sano qabiilan afuufi jiray waay aan qabiilkii aan afuufi jiray go'aan uga qaatay xasan sheekh been ii sheegay ma danbaan ka lahaa xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa haddaad u malayso in xasan sheekh aniga ballan igaga baxay oo sidaa awgeed aan u joojiyey qabyaaladii aan waday weligay muqdisho uguma tegin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa intuu madaxtooyada yimid danka ma yeelan ma soo booqan ma aadan igu arag anigoo caasimadda dhex taagan waa magaaladeydii laakiin anigoo booqanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma aadan igu arag taa micnaheedu muxuu yahay inaanan dan ka lahayn dan dhaqaale iyo dan xil midnaba kama lihin qof dan dhaqaale leh ama xil raadinaya muqdisho tagaa waa baryootamaa odaguu jilbaha qabtaa odaguu soo ammaanaa aniga maya qabyaaladda waxaan u daayana waxaa la barwanka ah qabyaaladdu halka ay soomaaliya dhigi doonto ayaan u jeeday waxaan ahay weriye runtan iftiimiya barahayga bulshada sida balwaan show pagekaygan iyo dhammaanba meelahaad iga daawatana runtaad igu imaanaysaa runta cadaalad muqdisho ba ka jirtaa laba wiiloo tiktokara ah midna uu yahay habar gidir midna uu yahay abgaal ayaa laba muuqaal soo kala duubay mid wuxuu aad u aflagaadeeyey beesha habar gidir oo sharaf iyo qiimo iyo qadarin mudan midna dowladda ayuu dhaliilay madaxweyne xasan sheekh iyo beesha abgaal ayuu wax ka sheegay kii beesha abgaal wax ka sheegay xabsigaa la dhigay kii habar gidir caayana waa xor ilaa iyo saacaddan aan kula hadlayo maxay ku dhacday cadaalad ma jirto war hawiye gudihiisana cadaalad ka jirin iska daa soomaalida kale aniga ma ka xumahay kama xumay sabab weligayba waan ogaa dowladdan inaysan cadaalad ka dhex jirin wax cadaalada inaanan laga dhex helayn hore waan u ogaa maantana waan ogahay hore waan u ogaa maantana waan ogahay annaga hal muhiim ayaa dan noo ah hal muhiimad ayaa annaga dan noo ah dalkan inaynu ka samato bixinno kooxdan xulufada ah ee aan qabyaalad cidna ugu isxaanfalayn haddaan dhihi lahayn hawiye u roon yihiin xasan sheekh ma hawiye u roon murasada qaylada ka baxaysa waad aragteen habar gidir sida loo galo waad aragteen abgaal waa caysle siinay sida loogu galo waad aragteen xasan sheekh maxamuud waa nibiri inuu wax leeqa mooyaane wax kale oo ka maqan malaha adiga unbaa wax kale raadinaya mooyaane xasan sheekh wax ka maqan oo aan ahayn maxaan liqaa waa caysle ahaw waa lagu cunayaa abgaal ahaw waa lagu kala tuurayaa murusade curadka hawiye silaca haysta waad aragteen inkastoo ay iska dhiciyeen habar gidir isxaan looma samayn cid qabiil ah oo xasan sheekh isxaan u sameeyey haddaad soo aragtaan wuxuu astahelaa in qabiil lagu difaaco laakiin waxaa kugu doqonnimo ah dadkaagoo ooyaya oo barooranaya maalin walba dadkaagoo ilimaynaya inaad xasan sheekh qabiil ku difaacdo nacasnimay kugu tahay 9 jir wacaysla ah ayuu guri ka dhacay who are you ma hawiina baad ku difaacaysaa ceeb iyo lama arag wallahi waa fashil wallahi mid ogaada marka soomaaliya
waxaan hubaa waan halkan u fadhiyaa hadduu xasan sheekh sanduuqa codka yimaado wallaahi lama dooranayo hadduu teendhada tago wallaahi lama dooranayo sabab yuu isxaan u sameeyey qof uuna surka uga istaagin ma jirtaa digrey milifle daarood hawiye ma ii sheegi kartaa jareer weyne cid uusan silcin madaxweyne xasan sheekh ma ii sheegi kartaa hal qabiil ii sheeg oo xasan sheekh ka badbaaday marka laga reebo jufada hoose ee cali gaaf anigu si badan aan ogahay jufada hoose ee cali gaaf marka laga reebo waa caysle waa weynayaan sooma hoos u soo deg waa caysle cali gaaf waa laga yaabaa qofka cali gaaf inuu badbaado laakiin cid aan cali gaaf ahayn cali gaaf waa jufa hoose marka caysle laga sii daadego oday xasan sheekh maxamed hoos ma jiraa qabiil kaloo difaacay qabiil kaloo badbaado ma jiraa ii sheega maxay tahay marka sababta doorashada keeni karta war baahayaa ka jirta xamar runtan idin sheegaa war shaqo la'aanaa jirta war ummadii oo dhan caasimada degan waca laba yaroo la biilo maaha qof la biilo dee nin baahan gob maaha soomaali horey u tiri marka qof la biilo waxba ha weydiinin ee qofka runta jecel ee xaqiiqda ka hadla qofkaas weydiin runtan isku sheegayna marka soomaaliya xasan faa'iido dalkan uma aha dal xureeye aaw madaxweyne dal xureeye shabaabkii 2 sano iyo googo aan la dagaalamayna halkii u joogaa meesha aan dagaalkii ka bilownay aaw dal xureeye ma ii sheegi kartaa dal xureeye maxaa laga faa'iiday dagaalkii shabaab maxaanu ka faa'iidnay jawaabtu waa maya waxba lagama faa'iidin xasan magaciisa waxaa la yidhahdaa qabyo ma taqaana macnaheeda xasan waa qabyo wax walba qabyo uga tagaa wax walba qabyo ayuu uga tagaa ma jirto libin uu xasan leeyahay oo la dhammaystiray mama jirto haba ugu imaan madaxweyne xasan sheekh qabyaad ugu imaanay qabyadaasuu weligii ku jiray waana ku jiri doonaa tusaale yar oo qosol badan waan idiin sheegayaa yuusuf madaala ma taqaanaa ninkii guddoomiyaha gobolka banaadir ahaa saaxiibka xasan sheekh uu ahaa gacanta midig markaasuu aniga dhihi jiray wallahi been idiin sheeg maayo odaga xasan ma yahay yuusuf madaala dhahay odaga xasan ma yahay wallahi waa jecel yahay odaga ma ima taaba karo odaga xaggiisa lagama maro ka waran guriga shariif sheekh axmed uu jooga hadda yuusuf madaalihii dhihi jiray aniga xasan sheekh xaggiisa lagama maro waa oday jecel gurigii shariif sheekh axmed uu joogaa cariya ii sheegi kara qof abaal u galay uu maalin u abaalguduma ii sheegi kartaa mahad maxamed salaad bidixdaa lagu salaamaa hadda wallaahi cabsiyu ka qabaa mahad maahane xilka mahad salaad laguma soo celi lahayn hay-adda nabad sugidda ee mahad waa uu ka baqaa siduu uga baqaa alaabta iyada ahayd dee mahad waa isnaqaanaa sooma mahad lama taaba karo meeshii iyada ahaydaa looga baqayaa lagama sheegi kara halkan cabsidaasaa laga baqaa ma ahane mahad axmed macali faqi cid uu isxaan u qabo ama u samaynayo madaxweyne xasan sheekh ma jirto waxaan sugnaaba waa xaaladda maanta iyo jawgii siyaasadeed ee dalka halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa hadduu alla idmo mar labaad waxaan idiin sheegayaa facebook haddaad iga daawanayso beejkan balwaan show kusoo biir halkan macluumaadka arrimaha siyaasadda beejkaygan balwaan show ayaad kala soconaysaan insha allah soo dhowaada bal wixii soo kordha marxaladda taagan iyo xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo waa ka soo warrami doonaa madaxweyne farmaajo dadku waxay leeyihin farmaajo maxaa ku dhacay farmaajo muxuu diidan yahay madaxweyne farmaajo horta waa hal arrinaan ka leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu qaatay go'aan aan weligay nin siyaasi aan ku arag weligay madaxweyne farmaajo go'aankuu qaato weligay qof siyaasi kuma arag wuxuu qaatay go'aan inuusan koox dhan ku biirin markaad la sheekaysato wuxuu ku leeyahay aniga waxaan kalsooni ku qabaa siyaasadeyda cid kale oo aan la fadhiisanayana malaha weligay ma arag madaxweyne dalkan soo maray ee keligii kalsooni isku qaba madaxweyne shariifa dalkan soo hogaamiye kooxuu ku jiraa xasan sheekha dalkan mar hogaamiye kooxuu ku biiray ra'iisul wasaarayaal baa dalkan soo maray kooxay ku biireen farmaajo wuxuu keligii kalsooni ku qabaa inuu siyaasaddan keligii guulaysan karo wuxuuna leeyahay hadday shacab noqotona shacabkii baan ku guulaysanayaa hadday noqoto teendhana anaa guulaysanaya odagu marka waa libaax midda kale anigu ma ahi doqon xaasida ma ahi doqonnimo iyo xaasinimo hadday isku kaa raacdan waa ceeb
farmaajo waa madaxweynihii isagoo lugaynaya madaxtooyada ka soo baxay calaashaan waxa uma dhaceen madaxweyne xasan sheekh iyo marwadiisa saynab maalintii madaxtooyada ka baxayeen gaari cad bay ku baxeen way lugaynayeen xitaa beesha caalamka maanta waxay ku weydiinayaan madaxweyne xasan sheekh maalintuu baxayay taajir u ahaa hadda markuu baxay lacag u haystaa kaala arag madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajon isagoon guri lahayn oo lugaynaya ayuu madaxtooyada ka baxay ninkaas miyuusan mudnayn inaanu dhahno madaxweyne mahadsanid miyuusan mudnayn mase annaga tug la jecelnahay annaga tuug maan jecelnahay mase nin nadiifa madaxweyne mahadsanid isha ku hay wixii soo kordha facebookan pagekan balwan show qaybta facebook haddaad iga daawanayso intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waa cabdullaahi balwan xilli xunaan soo gala subax salaada subax markaan ka soo baxay lifekan ayaan soo galay marka waa subax pagekayga kusoo dhawaada pagekayga marka aad aragto follow garee waa pagekee balwan show waad hadda iga daawanayso insha allah hadday wax soo kordhaanna muuqaallo ayaan soo dhigi doonaa pagekan daqiiqad walba insha allah nabadgelyo